saddexda nooc ee tuugsigaaba waa tuugsi waa xaaraan. tuugsiga culimadu waa xaaraan ee siyaarada loo yaqaan. tuugsiga reer magaalkana waa xaaraan ee shaxaadka la dhaho. shaxaadkuna waa tuugsi. siyaaradana waa tuugsi. tuugsiga caadiga ee taqiinaya masaakiinta iyo dadka kalena waa tuugsi. saadata nabi xadiidkii qabiisa waa kii ku lahaa qabiisow su-aasha dadka aad tuugsateed wax weydiisatee shaxaad iyo siyaariya tuugsi waxaa doonay ku magacaaween suxtun yakuluhu saaxibuhu suxtan. waa xaaraan qofka cunana waa xaaraan cun markii saddex laga reebo. saddexdaa mid dan guud buu ahaa, labana duruuf wakti kooban qabsatay ahaayeen. nin dan guud buu ahaayo nin dad is haysta oo inay isdilaan iyo dhiig ku daata ka baqay, xoolana isku haysta suu u kala badbaadiye yiri xoolihii anaa bixin isdaaya kala badbaada. ninkaasi dadku inuu weydiiyo bixiyaan ay siiyaan xaq buu leeyahay. baahi gaara ma ahane dadka in la kala badbaadiyo haddaan ninkaan la garab istaagin cid berri dad kala badbaadinoo xel qaadi ma leh. danta guud baa ku jirta. labada kalena waa laba nin oo waxaysan jiray oo xoolihii dhaafeen oo saddex qof oo xigtadooda ah oo xogogaal u ah ka markhaati fureen in baktigu u bannaan yahay. shaxaadkan reer magaalka iyo ziyaarada wadaadku tuugsadi iyo tuugsigan xirfadda laga dhigtay oo kuwa ganacsiyala ay tuugsanayaan, kuwana markay dhintaan tuugsan jiray akawnadoodii malaayiintu ku jirta ma aha. maxaa ka fiican? nabigu wuxuu isbarbar dhigay laba arrimood. inaad shaqaysato iyo inaad dad wax weydiisato. shaqo saddex tilmaamood leh baa ka fiican inaad dad wax weydiisato ama ha lagu diido ama ha lagu siiyo. shaqo aada u adag oo dhib badan oo rafaad iyo daal badan. dheef yar waxaa kaa soo gelaya wax aada u yar uu yahay. magac xumo leh dadku aan lagu qadarinin oo qiimo badan ka lahayn. hadday shaqada sidaasa dhib badan oo dheef yar oo magac xun iyo sukaa qabsato dad inaad shaxaado shaqadaa ka fiican buu inagu wuxuu qofkiin inuu faas qaato oo xaabo soo gurto oo xaabadii iibiyo oo isku baahidiisa ku daboolo baa uga khayr badan inuu dadka wax weydiisto ama ha siiyaan ama ha u diidaan. shaqo faas la qaato xaabo lasoo guro baadiye loo baxay oo tunka iyo dameer iyo lasoo saaray horta waa shaqo adag. xaabo la guray oo lasoo qaado oo la iibiyey waxaa laga helana waa waxyar. dadka dhexdoodana qofka xaabada guree suuqa xaabo ku iibiya waa shaqo dad badan ka faanaan. shaqadaa laga faano ee dhibka badan ee dheefta yar buu nabigu wuxuu leeyahay baa khayrun ka khayr badan min an yas'ala annaas actow aw manacuu. dad inuu wax weydiisto oo gacan hoos dhigto ama ha la siiya ama ha loo diidee shaqadaa dhibka badan ee dheefta yar ee magac xumada leh baa ka khayr badan diin ahaan. halkaa daba dad in la shaxadoo la tuugsado la gaarsiiyey aan ku gebagabeeye xadiid nabiga salaam. markaa dadka wax weydiisanaysa wejiga baad siinaysaa. qofka aakhare waxaa lagu ciqaabi wejigoo diiran oon hilib iyo harag lahayn oo lafa qayaxana inuu yimaado. wuxuu iman doonaa buu nabigu qofka yowma alqiyaamati walaysa fii wajhi muscatu laxmin in yar oo hilib ah iyo harag aan wejigiisu saarayn. wejigii uu dadka uu ku diirayay oo diiran buu aakhare iman doonaa. marka la soo istaaga qiyaamada kii tuugsan jiray nin walbaa garana wejiga diiran baa lagu garan. taa macnaheedu maxay xambaarsan tahay? duruuf adag u mar, shaqo adag gal, dhib badan u mar. dad baa dhibsanayo waa laga faanaa dhag ha u dhigin. shaqayso intaad dadka dulsaar iyo culays ku noqon lahayd. kasabkii baa la dhiiri gelinayaa. taana waa inaad ogaato kasabkaasi waa min aljihaadi fii sabiili illaahi haddaad aadaabtiisa ilaaliso. nabig sal l slam saxaabadu markay madiine joogeen dee quraysh baa kusoo duulaysay oo dad colaad iyo dagaal iyo duulaan lagu hayay ahaayeen. markii dagaalka la joogo
dee waxa lagu qiimeeyaa dagaalku qofku wuxuu ka gooyo. nabiga saxaabada maalin meel fadhiya nin geedka la ego xooggiisa la yaabay baa soo maro muslimiinta intuu salaamay u dhaafay. haddii askari iyo dagaal lagu jiro nin xoog gaala uu soo maro yaa baasuukiye madfac u dhiibun baa la dhihi lahaa soo maha. saxaabada waxay allah ninkan xooggaa ku yaalla haddii jihaad fii sabiilillaahi lagu aadi lahaa qiimo badnaan lahaaya. wuxuu nabigu uhi maya, hadduu u bax socdo shaqo iyo kasab naftiisa baahideeda inuu daboolo, ama ubad iyo ilmo ku xidhiira uu daboolo, ama waalid iyo dad dushiisa saaran inuu baahidooda daboolo, fa huwa fii sabiili illaahi, jihaad buu ku jiraa wey. jihaadkaad rabtaan kaa keliya ma ahee kanba fii sabiili illaahi wey. maxaa kaa dhiman? niyadda inaad wanaajiso ogaato kasabka xalaasha ah ajirna waa laga helaa min aljihaadi fii sabiili illahi buuna ka mid yahay. intee qaab buu nabigu haddaba u dhiirigeliyey in la shaqaysto oo la kasbado. saa darteed buu subixii shaqooyinka ugu fiican kalahaadda arooryadii buu ku daray nabigu. wuxuu uhi buurika liummatii fii bukuuriha, ummadayda ilaahay waxa u barakeeyey kalahaadda. salaad subax haddaad tukato seexasho maba ahaba, nin shaqaysanaya xilligu seexda maaha. xilligaas salaad subax tukato habeenkii dee saamaleylka iyo soo jeedka badanna waa laysu diiday. waxaa la yidhi horeyna u seexda, subixiina kaloo risiqina raadsada. habeenkii meelaha iyo waxyaabahan macno lahayn lagu soo jeedayo nabigu sooma dhihin salaada cishaha, lama dhihin nahaa can innawmi qablaha walxadiidi bacdaha. salaada boo cisho kadib inaad seexato waa la diiday, oo waktigan yar ee maqrib cisho haddaad seexato adoo daalan cisho waa ku daayay iyo jamaacadii. walxadiidi bacdaha, cishaha kadib in la cawayskan badan nabigu waa diiday. waayo haddaad caawa o dhan soo jeedo salaadii subax iyo salaatuleylkii aakhirkiina ciriiri bay kaa geli, subixiina waa daalantaho hurdaa ku hayso ma shaqo tegi kartid. buurika liummatii fii bukuuriha, waagu markuu bariyo inaad ka lahdaan rabaa. barqadii baan soo toosiyo subaxa kadib baan ku noqono ma fiicna. kasabka iyo shaqada saa darteed ciddii wax baranaysay iyo ciddii shaqaynaysay ka lahaad baa la ysfaray. dadaalkaas in la sameeyo oo qodobka labaad ay tahay inaad ogaato